madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka qayb galay maalinta koobaad ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo ololad ballaaran iskugu soo baxay guud ahaanba dalka ayaa u hambaliyay shacabka Somaliland sidii quruxda badnayd ay iskugu soo baxeen munaasabadii ay dhiin May madaxweyne Biixi oo halkaasi ka hadlayay ayaa sheegay inuu guul u rajaynayo dhammaan murashaxiinta ka sharaxan xisbiga muxaafidka ee isagoo kula dardaarmay inay ilaaliyaan abniga iyo xasiloonida dalka inuu dabaal degnay oo si cajiib leh iyo qiirana ay u dabaal degeen dhalinyarada da'da yar ee ka yar 30 sano ku dhashay gudahoodu siday u dabaal degeen dalka oo dhan siday social media uga dagaalameen wacdaraha ay dhigeen waan ugu mahadnaqaynaa haddaanu odayaasheena hayna dadkii halganka soo galay iyo dadkii talada SNM nabadaynta lahaa iyo kuwii dawladda dhisay waxaanu ku gamanay inay jiraan da'yar soo baxday oo dalkooda lagu aamini karo oo dalkooda jecel oo halgankii iyo Somaliland kulmiye murashaxiinta kulmiye ha soo baxaan murashaxiinta kulmiye meelay joogaanba idina waa mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim saaka anigu iyo tayladaada ah meelay joogaanba farxad xalay maanaan seexan iyo shalay aroortii markii Allah la bilaabay xalayna markii aanu saaka soo toosnay salaadii ka bacdi aniga iyo kuwa iladaada ah ee dalka Somaliland jooga iyo kuwa Kanada jooga iyo kuwa Mareykan jooga iyo meel kasta ay joogaan iyo kuwa guryaha jiifa ee naafada ah iyo kuwa miyi joogeena raaca waxaanu qaadaynay waaba beriyay biliisan Cabdirasaaq Axmed Adantayga telefishin